السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب سو دوادا موضوع عصوب. موضوع مانتا waxuu ku saabsan yahay sooyaalkii Richard Qalbi Asad. Richard Qalbi Asad waa magac taariikhda ku jira, wuxuuna ka mid ahaa dagaalyahanadii qarniyadii dhexe ugu caansanaa. Wuxuu magaciisa ku xiriirsanaa ama ku lamaan yahay magaca Salaaxudiin Ayyuubi markii la soo hadal qaado Ilaahay ka raali noqde. waxa uu dhashay Richard Qalbi Asad bishii Sebtembar 1957 miilaadiga, kuna uu dhashay magaalada Oxford. yaraantiisii aad ayuu ugaarsigiisu u badnaa. Richard waqti badan kuma u qaadan Ingiriiska, taasoo u sababtay inuu luqadda Ingiriiska si fiican ugu hadli waayo. xilliguu 9 sano jiray waxaa lagu meheriyey gabadha uu dhalay Louiskii toddobaad ee Faransiiska, laguna magacaabay Agnes, isagoo Richard aabihii Henrigii labaad uu boqorka ahaa Ingiriiska. hooyada Richard waxaa la oran jiray Eleanor. amar diidda ka dhan ah aabbahood ayay la yimaadeen Richard iyo walaalihiis, waxayna ku biireen ciidamadii Philipkii labaad ee Faransiiska, kaasoo dagaal kula jiray Henrigii labaad ee Ingiriiska 1189 miilaadiga, ilaa ay jebiyeen xukunkan ka tuureen Henrigii labaad ee Ingiriiska. waxay mu'arikhiintu sheegaan in Henry uu dhintay xanuun kadib markii ay ka adkaadeen carruurtiisii sharciga ahaa. carruurtu inay aabbood ku caasiyoobaan waxaa ka dambeeyey hooyadood oo ku didhay. kadib geeridii Henrigii labaad, Richard waxa uu noqday boqorka Ingiriiska. Richard waxa uu ku mashquulsanaa diyaarinta dagaaladii Saliibiyiinta ilaa heer uu 6 bilood oo kaliya uu ku qaatay dalka Ingiriiska muddadii 10 sanayd ee uu xukunka hayay. hamigiisu waxa uu ahaa inuu dib u qabsado Qudus kadib xoreynteedii Salaaxudiin Ayyuubi 1187 miilaadiga. Richard waxa uu ku dhawaaday inuu gaaro himiladiisii, laakiin wuu ku fashilmay. waxa guuldaro xun gaarsiiyey Salaaxudiin Ayyuubi, oo khilaaf aad u daran ayaa kala dhex galay cutubyadii Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. dhinaca kale, Richard ma xiisayn jirin guurka. markay da'diisu maraysay 31 sano, waxay ahayd inuu soo saaro Richard laxasugaha boqortooyada si looga fogaado fowdo iyo xukunka oo la isku qabsado. oo waxaaba markuu dhintay xukunka qabtay walaalkiis John, boqoradan ay noqotay hooyadiisa Eleanor. tii uu Richard xukumayay Ingiriiska, nadaafaddu aad ayay u liidatay, sidaas daraaddeed cunto kariyuhu wuxuu xubin muhiim ah ku lahaa boqortooyooyinka, oo khalad yar uu galo darteed ayuu boqorka dhimashadiisa u sababaysay. waxaa la isla dhex maray in Richard la dishay Qurancho, laakiin ereyga Qurancho waa sarbeeb. sanadku markuu ahaa 1199 miilaadiga, wuxuu go'doon saaray qalcadda Carlos ee ku taalla bartamaha Faransiiska. waxaa falaarihii laga soo tuurayay qasriga ay mid ka mid ah ku dhacday Richard, ilaa ay u sababtay inuu geeriyoodo Abriil 6 1199 miilaadiga. markii dambe waxaa caddaatay in qofkii soo ganay qaansada uu ahaa wiil yar oo colaad u qabay Richard kadib markii uu dilay aabbihiis iyo 2 walaalihiis ah. carabtii ayaa laqab uga dhigtay Richard Qalbi Asad, libaaxii ay Quranjo dishay. wassalaamu calaykum.